badan salaadiinta oo ugu horeeyo ugaaskeena aynu maanta halka ku caleema saarayno oo aan weliba annagu aabbihiina saaxiib ahayn isagana aanu saaxiib gaara nahay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi ciise nuur salaadiinta kale ee ka kala yimi jubbaland puntland iyo dhammaangeyga soomaaliyeed af soomaaliga laga hadlo siyaasiyiinta halkan fadhida ee ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo madaxweynihii hore ee dowladda ama maamulka puntland dowladda federaalka wasiirkeeda hogaaminayo wasiir jamaal labada gole ee sanadka iyo baarlamaanka wasiirada puntland oo wasiirkii arrimaha guduhu joogo oo halkan laga xusin iyo waftigu hogaaminayo dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa iyo haweenkeena sharafta badan iyo culimmada iyo cuqaashi iyo buurtinada salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi ilaahay waa mahad iskale alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka koowaad halkan waxaan uga mahadnaqaynaa dhammaan beeraweynta xasan ugaas ama haaruun xasan sida loo yaqaan ugaaska ay soo xulatay ugaas maxamuud ugaas cabdullaahi anigoo ku hadlaya dhammaan dhaqanka kuwii hore afkoodii iyo kuwa dambaba waxaanu ku leenahay ugaas ku soo dhowow golaha dhaqanka ee soomaaliyeed ee aabbahaa uu ka mid ahaa adigana beeshaada ku soo xuntay ku soo dhowow waa kugu soo dhoweyn marka xigta ugaas waqtigu waa kooban yahay oo de hadalka haddii lagaga horeeyo ragga kaaga horeeya ay salaadiin iyo waxgarad iyo culummo isugu jiraan iyo madaxda oo intii aad adigu oran lahayd iyagu ay yidhaahdaan waa intii hore weyn xogaa brotokoolka waxbaa ka qaldamay soomaalidu waxay tahay niman qaybin jirin hadduu qaybiyo niman qadi jirin baa qada laakiin waxaa weeye taa mar haddii marti noo yahay waxaa weeye aad baanu soo dhoweynaa dhaqanka oo dhan ugaas waxaanu ku leenahay saddex baa kaala dardaarmaya oo guddoonka dhaqanka ama saldana kaa qaada saddexa waxa weeye iska ilaali baan ku leeyahay saddex waa kaala dardaarmayaayo guddoonka dhaqanka waxaa kaa qaada oo waxa weeye aan kaala dardaarmaya gacan furan guddoon jilicsan iyo gareexo marka koowaad gacantaadu yaanay sidaa noqon sidana noqon guddoonkaaduna ha adkaawo haddii waxa weeye ay bir ka adkaanayso taana waxa weeye waxyaalaha dhaqanka qaada weyn guddoon jilicsan iyo gareexo iyo waxa weeye iyo gacan furan gareexana waa iska ilaalinaysaa gartaadu ha noqoto garan waxa weeye aad ka fiirsatay oo shuuradii iyo dhaqankii iyo gurtidii waxa weeye aad kala fadhiisatay ha noqoto saddexna waa kaala dardaarmaya arkayoo anigaa leh iliyo loo noqon maayo aan wax leema yidhaha saddexna waa kaala dardaarmaya wixii beesha soo dhex mara inaad tidhaahdid ee gudaha beesha yimaada arkayoo anigaa leh baranaa iskale hadlaysiiyo taa waa kaala dardaarmaya waa inaad iska fogaysaa go-aanka iliyo loo noqon maayana aadan orano oo aadan oran go-aanka anigaa gaadhay ugaas maxamuud haddaan ahay lagana noqon maayo shuuradaad siinaysaa dadkaa oganaysaa aan wax layma yidhaahdo waa lagu oranayaa waa lagu maadayaa meelaad ahayn baa la geynayaa waxa weeye dhaqanka de annaga kaaga soo horreynay waxaa la ceebka diqaweyn baa la iskaga dayaa waxa weeye dulqaad baa lagaa doonaya samir baa lagaa doonaya dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhan baa waxaad u tahay isimkoodii waa tahay oo ugaaskoodii tahay waxaa weeye inaad u dulqaadataa loo baahanya hadalkan waa idinku badiyey waxaan ku soo dhowaynayaa boqor burhaan oo aanu saaxiib nahay boqor muuse oo isaguna ugaaska ku soo dhowayn doona intii xanuunsatay halkan laga sheegayna ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay caafimaad ha siiyo ugaaskiina ugaaskii lagu hurto oo ugu soo hurto ilaahay ha ka dhigo ugaas ku soo dhowow golaha dhaqankeeda u baahantay oo marka ugu hoosaysa ku soo dhowow waa kugu soo dhowaynaynaa kaalintii ugaas cabdullaahi nagu hogaamin jirayna sidii raggii hore sheegay haddaadan nagaarsiiya nooga yeelan maysid soo dhowow boqor baan ku leeyahay boqor burhaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu